السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت هذا يوتيوب كشراوي اف اكس مجايا وحسن شراوي. maanta insha Allah waxaa ka hadli doonaa waxa la dhaho liquidity. maxaa la dhahaa liquidity? maxaa la dhahaa what is liquidity? marka video waxa ku koobnaa doonaa insha Allah inuu dheeraado ma rabi. waxay dhisan doonaa at least waa 10 minutes camal oo noqonaa si deeply ah muu gelaya marka koraa ka tataabanaa oo si deeply haddii uu koro liquidity waa ka dhaca hadda liquidity waa ka dhaqdaa dhaho way badnaa heesaa oo at least 30 minutes 40 minutes meelahaas u baahnahayna. marka si briefly ha uga hadlaynaa insha Allah haddaa ka heshaane video labaad commentiga soo gal video labaad nooga soo samayn dheh waa kasoo samayn karaa is feel free. marka liquidity maxaa la maanta ka sheekay doonaa cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay wax la dhaho liquidity. sidaa ognahay istiraatiijiyad walbo yani way ku jirta liquidity waa ka mid ama waxa aragta isticmaal mana isticmaal price action isticmaal ICT isticmaal macalimo isticmaal oo loo under iyo isticmaal yani istiraatiiji walba lagu yani lagu barayo liquidity ereygan qofka liquidity ku barin yani istiraatiijiyadaas wax badan ka dhiman macnaheedu waa ereyga liquidity. marka maadaama maqashay xoogaa haddaa ka haysatid aragti oo yani faham guud haddaa ka haysatid is okay maybe inuu hadalkii wax kaleeta kugu sii daro haddaana ka haysana cashirkaana buga doontaa. liquidity maxaa la dhahaa liquidity waxaa la dhahaa marka liquidity sida caadiga marka intaan forex u imaan waxaa la dhahaa cashirkaana afartan qaybood ka koobnaa doonaa. maxaa la liquidity noocyadeeda iyo muhiimadda ay leedahay iyo sababta u baranayn liquidity sababta u baranayn intaasoo noqon doona insha Allah. example oo example caadi ah oo chartskana waa iskula tegaynaa waa ku tusi doonaa insha Allah. marka liquidity maxaa la dhahaa liquidity marka la joogo waaye in forex ma ahan as general maxaa la dhahaa liquidity waxaa la dhahaa general the availability of horta liquid waxa ku qiimaad liquid ka caadiga waa naqaanaa soo ma liquid ka caadiga liquid waxaa la dareero soo ma liquidity laga dhiga marka dareerahii caadiga naqino marka the availability of liquid asset to market or company yani lacagta laga helayo ama assetka laga helayo yani shirkad ama suuq aa la dhahaa. it means liquidity waa lacagta meeshaas lagalsha macnaha ama meeshaas taalo haddaa shirkad leedahay shirkadaas lacagta shirkadaas ku fankaraysa ama expensiga ku bilowda a liquidity la dhahaa macnaha ama shirkadaas lacagtay leedahay ama market ha naqayo marketka adig kaliya milay dad badan oo kala duwanaan leh lacagahaas kala duwan oo yaala waxaa la marka liquidity Allah ma karatay in farqina kala imaado marka liquidity maxaa la dhahaa liquidity marka lagu sharaxayo waa lacag meel la soo gelsho waa macna lacag meel la soo gelsho sida ka ognahay forex ahaan waxa uu shaqeysaa sell and buy u shaqeysaa sell and buy maxaa waa ama lacagta waa soo iibsanaysaa oo qiime yaraa haysato waa iibsanaysaa ama waa soo iibsanaysaa. dadki soo iibsaday meeshaan lacagay ka soo gesheen dadki iska iibinaya meeshaanne lacagay meeshaan ka soo gesheen. meeshaan waxaa taalo marka liquidity meeshaan waxaa taalo liquidity ama sida kale haddaa u dhahno every high iyo ama every low waxaa la dhahaa liquidity yani high walba ama low walba liquidity aa la dhahaa. liquidity adminis maxaa lacagtaas meesha la soo geshay ama lacagtaas la soo geshay waxay noqon karaa lacagaha dadka soo geshay retail traders annaka ahaan retail traders ana sama institutionisa jiro oo bankiyaa jiro
oo hedge fundsaa jiro, oo a lot of investment waaweynaa jiro, oo dad shaksiyada oo millionaires oo bilyaneere ah oo lacago waaweyn soo geliya position waaweyn soo gelinayo. Anaka marka loo fiiriyo, annaka waa xamaalado iska naadhin, yacni retaila iska nahay, oo lacaga yar yara iska soo geliyana. Laakiin dadaa waxaa soo gelsho millions billions halkii position ka furo. Annaka 2 trade 3 trade markaa qaadanayna, waxaa laga yaabaa midkeen ugu badan inuu 5,000 ama 10,000 suuqa kusoo gelayo. Laakiin ragaa 100 millions 500 millions dadaa kusoo galayo, half billion dadaa kusoo galayo, 100 billion dadaa kusoo galayo. يعني waa lagu kala duwan yahay suuqa xajmiga ama liquid providerska badanaa jira. Marka liquiditygaas marka taasaa la dhahaa liquidity meeqay ku kala qaybsantaa. Liquidity laba ay ku kala qaybsantaa, waa ku sharaxi doonaa insha allah. Liquidity labada ay u kala qaybsanto waxaa la dhahaa, midna waxaa la dhahaa midna waxaa la dhahaa internal liquidity, midna external liquidity. Maxaa la dhahaa internal liquidity, internal liquidity. midka kalena waxaa la dhahaa midka kalena waxaa la dhahaa external liquidity. internal liquidity maxaa la dhahaa, external liquidity maxaa la dhahaa, waa baranaysa insha allah. iyo importance iyo why do we learn. marka asigoo caadi ah oo example ahaana u tegina, example keena ugu horeeya maxaa ah sell scenario. example keena ugu horeeya, suuqan xaguu u socdaa, suuqan jihadiisa waa xagee, jihadiisa waa xagee, waa sidee ku ogaahayna jihadiisa. yacni inaad fahmi kartaa la rabaa. mar walba waxaa la jebinayaa hayaa la jebinayaa, oo hayaa la jebiyey, oo hayaa la jebiyey. idminis maxaa marka suuqa waa uptrend waaye. uptrend maxaa laga wadaa, waa buy, waa suuqa jihadiisa guud waa buy. maadaamay buy tahay marka liquidityga xagee taalaa. marka liquidity haddaa sidaa kuu sheegay, waxaa la dhihi karaa sida caadiga every high ama every low ee taalaa. macnaha high iyo lowgeeda xagee waaye, waa kuwaana. high waa kana, low waa kana, low kale waa kana, high low another low kale. meeshaas dhanba waxaa taalo lacaga badan oo suuqa markuu intuu socayay, yacni hayga ugu sareeya markuu takiy kadib, mar walbo suuq iska aadaya bay kor wada aadaya ma jiro. suuqa waa waajib, oo sababtoo ah balance u baahan yahay suuqa. sababtoo balance u baahan yahay maxaa waa, suuqa laba gurubaa ka shaqaysato, qolana way buy karaysaa, qolana way sell karaysaa. laakiin buy kaliya hadduu waa aada hadduu dhahay waa eber macna, oo suuqa oo buy wada aadayo ma jiro. marka waa waajib, hadduu suuqa buy wada aadayo waa inaa lala dagaalaa buyerskaas. buyerskaas yaa la dagaalayo, sellers kaleetaa lasoo dagaalaya oo meeshan kasoo gelaya. markii intuu soo jiida haddana waa laga sii awood roonaanayaa, oo qoladii buyga inta kasoo dhahdo qolo kaleeta inta ugu soo biirayso waa lasii wadayaa. markii awoodooda meeshan kusii liicdo oo sellerska kuwa inta ahay awoodda markay ka yaraato, qolo kaleeta markay meeshan tagaan sellers kaleeta xataa xoogaa awood soo siinayo. awood marka siiso qoladan way sii tabar dhaacaysaa, qolo kaleeta buyers kaleeta sii imaanaya. hardankaasa ka jira marka suuqa. hardankaas maadaama uu ka jiro, marka suuqa always wuxuu sameeyaa high markuu sameeyo waa inuu nasasho inuu soo sameeya. nasashada waa tanaa marka muxuu haddana sii sameeyey buushin ama uu sii kacay, kadib haddana wuxuu sii sameeyey nasasho gaaban oo yar, inta wuxuu sii sameeyey move weyn oo sii sameeya oo viruska weli awoodda sii hayo. nasasho yaris oo soo sameeya oo sellersa xoogaa awoodda sii yeesheen, kadib haddana virus kaleetaan kusii la sii wareegeen. marka liquidity xaggee ka raadiyeynaa mar walba every high iyo every low.
ka raadiyana marka laba u qaybinaa dhahnay liquidity external iyo liquidity internal. External waa xagee? Liquidity external waa tan liquidity external waa xagee? waa tana oo waa tana sidee ku ogaad inay liquidity external tahay? mar walbo marka inta joogtid ka soo qabo marka inta joogtid oo inta joogtid external xagee kana external kuwan external ma ahan oo meelaha kuwan yar yarka meeshan ku jiro waa internal. waa macnaha internal maxaa laga wadaa? gudahay ku jiraan oo banaanka ma ku jiraan. external sida caadiga ah ingiriiska caadiga ah qofka yaqaana soomaaliga wuu fudud yahay. external means waxaa laga wadaa banaanka. internalna waxaa laga wadaa internalna xagee laga wadaa? gudaha waaye. marka ayaga waxay yaalaan ama waxay ka samaysmeen gudahay ka samaysmeen gudahay ka samaysmeen. marka kuwan waaweynka haddaa dhahna external kuwan yaryariskane mid intuu ka samaysmay waa internal u dhan. external waa ka shisheeya mid kanna waa ka shisheeya. kan muxuu noqonayaa marka? weli internal waaye. kormo external isku bedelaya markuu kan la jibiyo moveka markuu inta jibiyo kan muxuu noqonayaa external. ilaa intana waxaa sii noqonayaa internal waaye. internal kan muxuu sii noqonayaa external. weli externalka ma xaqiiqsano. kormo xaqiiqsama marka internalkan la kareeyo internala la kareeye dan weli kan internala dhahena kan wuxuu noo noqonaa marka kan lasoo jibiyo external oo noo noqonaa. kan marka lasii jibiyo asigane wuxuu noqonaa maadaama internal ah external oo noqonaa. marka external hadda sida caadiga u jeedna maxaa la dhahaa? kuwa external waa internal waa internal 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 external waa waxkay kuwan waa 1 2 3 4 5 6 lixdaasa maxaa ah external. kan external ma dhihi karnaa maya. sababtuna waa maxay? weliba internal ma samaysminbe oo markuu saan soo dhahayo oo saan sii naqay kadib waxaa dhahaynaa external waa. kuwaana waxay noqdeen internal waa ilaa oo hoos soo aadaan internal waa. marka kan la jebiyo kan markuu kan jebiyo waxaa dhahaynaa kan waa external. taasina fahamta arjeeya. another example haddaa ku fahmi weyso kan waa seel waa buy aa dhehe abtrain oo suuqan ku socdaa. abtrain sababtoo ku socda waa maxay? abtrain inuu ku socdo say ku ogaanaya? abtrain wuxuu ku socoyaa mar walbo high 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 low high 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 low high 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 low high high. kana waa higher high kana waa higher low kana waa higher high kana waa higher low kana waa higher high kana waa higher low. taas waa saas oo abtrain uu socday. okay asigoo seel hay marka seel scenario marka hadda waa fahantay. maadaama fahantay external ah iyo internal maxay kala yihiin? kan waa external 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 external. mar walbana calaamadahan waxaa kugu qoray kan gaduud waa externalka kanne waa I think kalarka ma aqaana. I don't know kalarka laakiin waa kalarkan waxaa taqaanaa ani kalarada ma isku fiicnin magacooda gabdhaha si fiican u yaqaana laakiin waa kalarkaas macnaha. kuwan kaleetana waa maxay? externalkan kalarka gaduudkaa siiye. kuwan kaleetana internalkana waxaa siiye kalarkaana siiye kan cagaar waa aqaana buluug waa aqaana laakiin kanaa la siiye kalarkaasa siiye. marka kanna waa internal external kana external kana external external external. kuwan kaleeto dhexda ku jirana gudaha ku jiro waa internal waaye. kana waa internal kana waa internal kan xataa waa internal. labadana external labadan external kormo kan iyo kan external waaye. kormo external noqonaa kan marka la jebiyo kan oo hooso loogan hoose marka la jebiyo oo external noqona. weli internal ma samaysmin kan oo external ah oo marka inta loo sii socdo mar walba kan external maya
ma samaysmin weli, laakiin intuu aaday oo soo noqday kan external waan dhahaynaa maya, weli internal leeno waay. kadib markaa kan la jebiyo kan wuxuu noo noqonaa external wuxuu noo noqonaa oo external. waa la abuuray macnaha lowgan waa la abuuray marka lasoo jebiyo kadib kuwaana internal ay noqonayaan. waxaa abuurmaya markaa kan la jebiyo externalkan kaleeta abuurmaya. waa sell scenario. muhiimadda marka waa maxay sababta u baranayn mar walbo suuqa yacni fahanno sababta uu dhaqaaqayo moveka sababta uu sameeyo why oo buy loo aado why oo sell loo aado. liquidity yaa wada liquidity wada kuwee wadaan mar walba waxaas hadaa isweydiisa yani suuqa meesha u dhaqaaqayo waa fahmaysaa macnaha importanciga marka. importancigeeda waa maxay? importancigeeda waxa waaye yacni waxaa ogaanaysaa buyerska ma awood badan mase sellerska awood badan. liquidity mar walbana liquidityga mar walbana waa la target karaya. waa la target karaya macnaheedu maxaa waaye mar walba waxaa la aadaa liquidity meelee taalo oo lacaga fara badan si lacagtaas loo cuno lacagahaas fara badan mar walba lacagtaas waa la target karayaa oo waa la aadaa macnaha lacagtaas in la cuno ama ha cunaano institutions ama qolo buyers hore usoo cuna sellers kaletaa cunayaan sooma. mar walba lacagtaas targetaa laga dhigtaa marka liquiditydana waa la target karayaa sidoo kale waana laga trade karayaa oo liquidity haddii la qaado maxaa laga raadsadaa janis oo jihada kaleeto ama buy ha loo qaado ama sell ha loo qaado oo sida dhahayo ICT yani buy side liquidity iyo sell side liquidity ee kala dhaxaan. why do we learn sababta u baranayna marka istiraatiijiyadan ay noqotaa iyada dhan liquidity hataa baratid istiraatiijiya wada noqotaa macnaha oo sababtoo ah anoo kaleeto liquidityga waxa ugu muhiimsan the most importance oo anisid aabiyadayda ku dhisa maxaa waa liquidity. liquidity hataa ka waayo wax walba ama shay faaliga kaaba ma order block waxaas dhan ma ahan priority number one waa inaa liquidity la qaadaa. liquidity marka la qaadaa aisha trade ka raadsadaa markaa ka raadsado kadib liquidity another liquidity kaleetaana target karaya. marka liquidityyadana way kala muhiimsan yihiin oo internal liquidity external liquidity. kuwa la qaado hadaa internal liquidity la qaado xoogaa high probability ma aha laakiin external liquidity marka la qaado high probability waa tradekaas oo soo aadaya macna inaa dheeraada umalaya jadiskaninkii marka jadiskaninkii sorry يعني kusoo noqono example caadi a qaadanayna insha allah. hadda soo aragna sama example a qaadanayna example ka qaadanayna marka waxaa leynaa liquidityga xagee laga raadiyaa suuqan xaqu ku socdaa. suuqan sida caadiga u socda maxaa waaye seel ku socdaa. seel sababta ku socdaa maxay waxaa la qaadayaa oo soo kaabinaya waxaa la qaadayaa yani mar walba lowaa la qaadaya oo lowaa la qaado oo lowaa la qaado oo lowaa la qaado lowaa la qaaday marka waxaa dhahaynaa liquidityada xagee yaadhe every high ama every low liquiditygan oo kaleeto kanna waa liquidity kanna waa liquidity kan waa la qaaday oo markoo kan ahayaa la qaaday kanna waa la qaaday waa la soo kelin karayay kuwaana waa liquidity
kuwana waa liquidity also liquidity-na waa kuwana. kana waa la qaado soma liquidity ma ahata, laakiin kana waa liquidity, kan kan waa liquidity also halkaana waa liquidity. kuwaasna waa liquidity, kan lacag waa la qaado laakiin hadda liquidity-yada meesha yaalo waa maxay? maxay kala yihiin marka? kanna waa internal liquidity, waan dhexda ku jira maxaa la lahaa internal liquidity. LQ maxaa laga soo qaabshay liquidity ah. waana waa external, waa calaamadaha waaweynka ah. external liquidity, kuwaasna calaamadaha waaweynka waa kana waa external, kana waa external, kuwana waa external. kuwan external ay ahaayeen laakiin waa la qaado hadda lacag badan meesha ma taalo, sababtoo liquidity marka inta laga soo kala lacag fara badana meesha laga soo geliyay abayras ka soo geliyeen. goormee la qaaday? selleriskana lacagtan qaadeen. mar walba awoodda xaggee u socotaa? seller u socotaa. ugu dambeyn marka maxay sameeyaan liquidity-da marka kan hadda external iyo internal labadaana kala samaysan. goormo internal samaysmaa, external goormo samaysmaa, muxuu samaysmaa marka liquidity-ga la qaado. liquidity-ga hadda meesha yaalo marka la qaado weliba ma si saxnee confirm cad goormoo noqonaa, markuu san yahay weli confirm maaha. sababtuna waa maxay? confirm marka la dhihi kara maxaa waa oo liquidity-ga external waaye dhihi kara maxaa waaye marka kan la qaado external liquidity-ga marka la qaado kan waxaa dhahaynaa external oo noqonaa, laakiin inta kasoo kale hadda maxaa noo waaye internal noo waa anag oo asigaas internal inuu yahay ka xaqiiqsanina. kan waa internal, kan waa internal, kan waa internal, kan waaba la qaaday way iska dhaaf. labadaane hadda laakiin labadaa maxaa noo waaye external also kan kaleeta external kaleeta sii jiro laakiin externalkani ku dhexaysa maadaama suuqa seelo ku jira sooma. kanna maxaa waa external 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 external. kuwa maxaa marka? kuwan yaryarka internal waaye sooma, internal waa internal waa. kuwan kaleeto laakiin external waa. I think inaa wax ka faa'iidayna insha allah. caafimaad khayr. hadaa ka heshan video kaleeto labaad kasoo sameeya dhehaysidne kasoo sameeya dheh. videoga noo la karay waxa ugu muhiimsan waxaa ka yaalaa sidoo kale inaad comment kasoo bixisid oo this okay, yani commentigaadana waa ii dhiirigelin ma garata. sidoo kaleeto subscribe galaanka noo saar oo subscribe yaraa la haysnaa almost 100 waxaa nooga dhiman 10 qof aa nooga dhiman. 100kaasna gaarsiiya insha allah. caafimaad kulanta dambe xiiso leh insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.